maalgashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar oo kamid ah wufuudda uu hogaaminayay madaxweyne Siilaanyo ayaa ka warbixiyay kulankii Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxda ka socotay iyo shirkadda heer caalami ee laga leeyahay dalka Faransiiska ee Bollorade ka soo baxay kulamadii aanu la lahayn shirkadda Bollorade Group ee dalka Faransiiska ku takhasustay ama ku hawlgasha arrimaha xagga dekeduhu maanta ayuu noo soo dhamaaday kulamadaasi 2 maalmood bay socdeen ujeedaduna waxay ahaayeen in si ballaaran oo faahfaahsan dawladda Soomaaliland iyo shirkadda Bollorade Group ay wada fadhiistaan ugana wada hadlaan fikirkooda ku wajahan dhismaha iyo horumarka dekedda Berbera shirkaddu waxay soo bandhigtay noocyada dekedaha ee maamusho ilaa dhowr iyo 10 dekedood oo ka tirsan qaaradda Afrika oo hayso iyo sidii uu maamusho iyo sidii ay u soo dhistay ay ka warantay warbixin ka siisay waxa kale oo noo soo gudbisay qorshe ay ugu talagashay dekedda Berbera in lagu horumariyo anaguna ka wasiiraha xukuumadda waxaan markaa soo bandhignay sida aan doonayno in dekedda Berbera ay noqoto mustaqbalka sida aan doonayno inay horumarto sida aan doonayno inay shaqo abuurka uga qayb qaadato sida aan u doonayno inay noqoto deked weyn oo caalami ah oo geeska Afrika laga yaqaan oo dalal badan oo aan deked lahayn oo Ethiopia kamid tahayna ay u noqoto dekeda ay isticmaalayaan dibadda markaa waxaan soo idaarsanay markaa inta dhameynay su'aalo iyo munaaqasho dheer oo arrimaha ku saabsan waxaan markii dambe markaa isku raacnay in aanu anagu markaa dib u noqono wararka ay siiyeen hindisiyaasha ay soo gudbiyeen oo aanu markaa u gudbino lawyers iyo khubaro iyo ku takhasusta xagga dekedaha oo noo madax banaan oo leenahay oo caalami ah oo banka adduunka uu noo soo diyaar gareeyay nagu caawiyo inaan u gudbino oo iyagu markaa tala farsamaysan aynu soo siiyaan xukuumadahan dibadda xukuumadda Soomaaliland markaa kadib haddii ay ku qanacdo markaa inaan markaa go'aan aanu ka qaadano business ama go'aan ganacsi inaan markaa arrinta ka qaadano ayaan sida aanu ka arki karinay Honkable TV ahaan maalgashadayaasha shirkadda Bollorade waxaa noo muuqanaysay xiisab badan oo ay u qabaan in dekedda Berbera ay xiriir wanaagsan idin la yeeshaan idinku xiisa la mid ah xukuumad ahaan ma u qabtaan inaad shirkadda soo dhaweysaan oo maalgashiga ay doonayaan aad laftiinu fududeysaan haddii mustaqbalka aad isku waafaqdaan in badan facilities fara badan u sameysaan si ay u hirgasho shirkaddan hamiga ku jira ee Bollorade waxaa naga go'an inaanu dalkan horumarino oo aan maalgashi doono horumarka dalka Soomaaliland kuma imanayo qura horumar dadkiisu ay keenaan oo kaliya waxaan ka dhaleegsanahay in dunidu ayna sidaas oo kaliya ku horumarin loo baahan yahay in investment ama maalgashi dibadeed inuu dalka yimaado dalku wuxuu leeyahay shuruuc waan leenahay ilaalisa maalgashiga waxaan leenahay qawaaniin hagta waxaan leenahay dawlad iyo xukuumad dalka wakiilka ah oo wixii maalgashi faa'iido u leh dalka u keenaysa wixii khasaare u keenayana ka celinaysa marka anagu waan soo dhaweynaa hadday deked tahay hadday tahay airport hadday tahay shidaalka kale ee dhulka ku jira macaadinta ku jirta hadday tahay beeraha hadday tahay dhinaca dunta noqotay waan soo dhaweynaa cid alla cidii maalgashanaysa dalka Soomaaliland ee horumarkiisa nagala Mustafa Hajadan Harun telefishinka caalamiga oo Cable TV Paris France